وهكاك داوديال iyadoo dhawaan dawladda Kenya ay soo saartay go'aano isxigxigay oo ku saabsanaa in gabi ahaanba la xiri doono xiriyooyinka qaxootiga Dadaab iyo Kakuma sidoo kale in la tarxiili doono Soomaalida ku nool Nairobi ee aan haysanin degnaanshiyaha dalkani Kenya ayaa waxaa maanta nagu soo booqday xarunta 5TV xildhibaan Cabdicasiis Xasan Maxamed oo ku magac dheer Koof Guduud Cabdicasiis marka hore soo dhawow waa mahadsantahay walaalkay adiga iyo bahda 5 Star TV-na aad baan u mahadcelinayaa 5TV aad u mahadsantahay ugu horeyntii waxa ku weydiinayaa dawladda waxay soo saartay go'aano isxigxigay oo aad loo maleynayay in Soomaalida lagu beegsanayo haddii aad inta xogogaalkaaga aad naga siisid waxa kala socotid horta Soomaalida marka u horeysay oo la beegsaday ma noqonayso horey u dhacday Kenya iyo Soomaaliya markii ay arrimo siyaasadeed ama mid badda ha noqoto ama arrimo kale oo ciidanka KDF oo wadanka Soomaaliya joogo ay isku qabsadeen joogitaankooda dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya ma ahan marka hadda ma noqonayso markii ugu horeysay oo caradii loo qabay dawladda Soomaaliya lagu soo duldhaco dadka masaakiinta xaafadda isla ku dhaqan horey u dhacday waa tii Linda Inchi waagi wadanka ay gali jireen ay dadka ay ku sameeyeen raaf la sameeyay oo la isku geeyay Kasarani oo dad badan la tarxiilay gabdha qaar cabsi ay askarta ka qabeen ay guryaha isaga soo tuureen ay ku dhinteen qaar dahabkooda laga dhacay marka boobkaas iyo hanjabaada iyo cagajugleynta wax maanta u horeyso Soomaalida ay surprise ku noqonaysa ma horey u jirtay way dhacday haddana waxay soo saareen dawladda 14 maalin inay siiyeen UN-ka inay ku xiraan xiriyooyinka qaxootiga Dadaab iyo Kakuma UN way soo jawaabtay waxayna aad u rajo weyn uga muujisay inay wada hadal kula jirto dawladda Kenya si arrinkaas wax looga bedelo maadaama caabuqa coronavirus uu saamixi doonin dad inta laga kaxeeyay in dad kale oo ayagana statuskooda aan la hubin la dulgeeyo dadkana dad 2 iyo 5 aysan ahayn 2 milyan ku dhawaad ay yihiin 500,000 oo qoys ah lagu qiyaasaa marka cala qoys 2 qof 3 qof lagu dhaftana xisaabtu waxay tagaysaa ku dhawaad 2 milyan UN baaq bay soo bixisay warqad bay soo qortay dawladda ay kula hadlayso ka codsanayso in arrinkaas ay dib u dhigto oo wada xaajood ay arrinkaas ka galaan wada hadalkina weli wuu socdaa ilaa hadda wax raaf oo xaafadda ka bilowda malaha laakiin cabsida way jirtaa dhagtana way taagayaan shacabka isbuucii la soo dhaafay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya waxay sheegtay inay 14 bari u qabatay hay'adaha UN-ka sidii ay dib ugu celin lahayn ama u xir lahayn xiriyooyinkaas waxay hadalkaas ay wasaaradda daba dhigtay inaan wax gorgortan dambe aan laga gali doonin in ay sii jiraan xiriyahaasi haddii ay dawladdu ku adkaysato go'aankeeda maxaa xigi doona horta ma dhici doonto inay ku adkaysato sababta Kenya Ireland isolated ah oo adduunka ka go'an ma aha waxa qabto oo la rabaa inay ku dhaqanto xeerarka caalamiga ah ee u yaala qaxootiga Kenya waxay kamid tahay wadamada saxiixay ama ratify gareeyay ku dhawaad ilaa 6 international treaties ama heshiis caalami ah oo lagu difaacayo ama lagu gargaarayo qaxootiga marka si sahlan saxiixaas uga ma bixi karto agreementkii ama heshiisyada ay saxiixeen waxaa kamid ah the refugee convention in 1966 human right maxaa la yiraahdaa UN-ta ay soo jeediyeen oo ku dhawaad 149 wadan oo Kenya ay kamid tahay ay saxiixeen inay u adeeci doonaan ayna ku dhaqmi doonaan dastuurka Kenya waxaa ku jiro xuquuq fara badan oo difaacaya qofka qaxootiga ah qaxootina Soomaali kaliya ma aha wadankan qaxooti waxaa ku nool Suudaniis ah waxaa ku nool qaxooti Ethiopian ah waxaa ku nool qaxooti Oromo waxaa ku nool qaxooti aanan ahayn xitaa Afrikaan oo Carab ah ku nool wadankan Syrian ku nool marka ma u jeedo wax ay si gooni ah target uga dhigato Soomaalida haddii aysan arkin Soomaalida hogaamiyaashooda iyo dadka horjooga u ah ama siyaasiyiinta siyaasadda ku matalo oo Soomaalida koonfur galbeed I mean ismaamulka North Eastern ka soo jeedo ama ha ahaadeen ama siyaasi dadkan arrimaha bini'aadanimada uu doodo sida Human Rights Watch iyo Amnesty International laga yaabo xitaa dad Soomaali inay ka shaqeeyaan
laga yaabo dabacsanaan dadkaas dhankooda ka timid oo aysan advocacy ku filan u sameynin shacabkooda Soomaalida iyo Soomaalida oo dhibka isku fiirsato isku daawato oo wiil Soomaali ah oo de qofka qaxootiga xataa xaq uu leeyahay oo wuxuu ku soo galay wadanka warqad qaxootiga oo laga soo siiyay xiriyaha qaxootiga inuu safri karo ama caafimaad u safri karo ama waxbarasho u safri karo ama noloshiisa inuu dhisto u safri karo dadkii loogu talagalay inay dadka difaacaan yaa waxaan isleeyahay waxay ka gaabiyeen inay xabadka u garaacdaan walaalahood Soomaalidana waxay iska dhaadhiciyeen intooda sharciga haysto inaysan Soomaalinimo loo target gareyn doonin oo dadkan sharciga haysan kaliya la aadi doono laakiin waxaa dhici doonto sida ay ku socoto in ay soo baxaan dad aanba ku jira aniga haddaan rabe xabadka u tuman doono walaalahood oo xitaa laga yaabo inay gaarto inay sharciga Kenyaanka iska wareejiyaan si ay solidarity iyo garab istaag ugu muujiyaan walaalahood sida xaqdarada lagu dulminayo waa mahadsantahay war kale oo soo baxay maalintii Jimcada ee isbuucii hore aan kasoo gudubnay wuxuu sheegayay in dadka ku dhaqan magaalada Nairobi qaasaan xaafadda Islii ee aan haysanin degnaanshaha dalkan Kenya loo celin doono Soomaaliya la tarxiili doono sidoo kale kuwa ganacsatada ee looga shakiyay inay maalgeliyaan ama xiriir la leeyihiin argagixisada hantidooda ee dawladda la wareegi doonto go'aankaas camal wuxuu dhacay sahaday sheegtayba hadda ka hor 2014 oo ogeed dhibaatadii laga dhaxlay muxuu noqon karaa go'aankan haddii mar kale uu soo laabto ilamaha inuu soo laaban karo sababtoo wadanka Kenya hadda wuxuu ku jiraa political crisis asagaaba wuxuu yani xarga ka kala fakanayo oo wax badan ka baylahsan yihiin weeye xisbigii talada wadanka hayay iyo ishayo madaxweynihii iyo ku-xigeenkiisii oo laba isbahaysi oo 2022 doorashada looga qayb gali doono dhisanayo mashruuc waxaa socda BBI la yiraahdo oo runtii ajendihii 5 sano oo la soo dhaafay loogu talagalay wadanka in loogu shaqeeyo carqaladeyn ku sameeyay ama dhaxgalay oo ka weeciyay attentionki dawladda ay u haysay big four agenda wax la yiraahdo jiro oo guriyeynta ay kamid tahay iyo food security ay kamid tahay waxyaalo badan ba marka dawladda Kenya ka dayacan I don't think inay waqti badan ama resource badan ama energy fara badan ay u hayso maanta inay Soomaali 2 milyan gaarayso ama ka badan inay tarxiisho ama ay damacdo inay wadankooda ku celiso marka waa hadal waxa way malagi galay way okay adi waxa tahay xildhibaan musharaxa tahay oo xildhibaan ah Islii ka taagan tahay waxa tahay Soomaali hadii aad ku guuleysato aad maxaa kaaga qorsheysan in arrimaha Islii ay soo laabto ama Soomaalida ku soo laabto in ka qabatid horta waxyaalaha xildhibaanadii xaafadda soo maray ay ka gaabiyeen waxaa kamid ah qofka Soomaaliga ah inuu dastuurka uu ogol yahay haduu xitaa Soomaaliya ku dhashay ama qof weyn ha ahaado ama qof yar ha noqdo haduuba qofka qaangaar yahay oo xilliga kibaandaha loogu talagalay sharciga inuu qaato la gaaro dastuurka Kenya wuxuu qorayaa 5 sano gudahood qofkaas inuu citizen ku noqon karo aniga marka waxaan fududeyn doonaa insha Allah haduu Ilaahay ugu guuleysiyo kursiga in kuwa meeshan ku dhashay iska daa oo la yiraahdo northeastern aadam maadaama Soomaalitiin wiilal dad waxaan naqaanaa Madina Hospital ku dhashay Mother and Child Hospital ku dhashay Pumwani ku dhashay oo Soomaali weligood arkin oo inta ku qaangaaray wax ku bartay 20 jir ah markay kibaandaha kama kunji u doontaan la yiraahdo maadaama hooyada ama aabaha kibaandahooda uu ku qoran yahay Gaarisa Wajeer ama Mandera waa inaad dhulkiini aadaa dhulka kale haysta waa maxay wiilkan xaafadan uu degan yahay teeda kale waxa ognahay xaafada degmooyinkaas loo diraayo oo goboladaas loo diraayo inay qabiilo degaan asagana laga yaabo inuusan qabiiladaas ka tirsaneen markii vetting la sameynayo oo kibaandaha dadka loo jaraayana waxyaalaha la weydiiyo waxa kamid ah qabiilkooda Gaarisa tusaale ahaan Gaarisa hadaa tagtid oo dadka meesha dego aadan ku abtirsanin way adagtahay inaad sharci heshid Isliina waa ognahay Soomaali oo dhan degan nooc kasta yani shanta Soomaali weyna ayaa ku kulantay Islii anuga Islii ku dhashay oo aan goboladaas Wajeer iyo Mandera Gaarisa iyo Wajeer aanan qabiilada dego oo u badan aan kamid ahayn way ku adagtahay inuu sharci helo aniga marka waxaan fududeyn doonaa aan xabadka u garaacan doonaa qofka inta ku dhashay horta inuu shuruud la'aan uu sharcigiisa helo haduu inta ku dhashay waalidkiisa meesha doonaa ku dhashay laakiin asuu haduu asaga inta ku dhashay warqad dhalasho oo isbitaalada Islii ama Kamukunji ama Nairobi xitaa ka tirsan oo ku dhashay aniga waxaan ballan qaadayaa inaan
priority-ga koobaad siiyey sharciga. dadka kale oo ayagu waaweyn wadanka yimid oo aanan ku dhalanin wadanka haddii ay caddayn karaan 5 sano inay wadanka joogeen oo si sharci ku joogeen ama viiso ay ku joogeen ama permit ay haysteen u fasaxaysa inay wadanka si sharci ku joogaan 5 sano ama ha ka ganacsadeen ama buufis ha u joogeen hadday rabaan ama haddii la rabo waxbarasho ha u joogeen. waxaan u ballan qaadayaa inay sharciga ku heli doonaan si sahlan oo weliba xaafadan gudaheeda. sababtoo ah 2019 waxaan anagu ka faa'iideysanayna mashruucan BBI oo la rabo 70 degmo horle in xaafada lagu soo kordhiyo. waxaan ka codsanay guddiga doorashooyinka warqad aan u qornaa waxaan kaga codsanay xaafada Islii in lagu daro 70 degmo la soo kordhin doono. xaafada Kamukunji Isliina la kala jaro. mashruucaasna waxaan ugu magac darnay Islii Kando Initiative. waxaana hogaaminayo tiimkayga tiim Koofi Gaduud oo aniga aan hogaamiye u ahay. annagoo ka faa'iideysanayna mashruucaas BBI waxaan rabnaa xaafada Islii inay degmo gooni noqoto markaasna taladeeda gacanta Soomaalida ay si toos ah u soo gasho oo askarta aan qoranno hadda askar ma qoranno askarta Soomaalidu hadda noo joogto noo shaqeyso waa Reer Eastern Reer Islii ma aha Soomaalinimo noogula keenay waa inaan booliiska qoranno AP ga qoranno trafficada qoranno military-ga KDF ka aan qoranno intelligence-ka wadanka aan galno oo wadanka inaan wax ku leenahay aan caddeeno. waa maasan tahay gabagabadii waxaa lagu dhahaa lagu naanaysaa Koofi Gaduud tiimkaagana Koofi Gaduud Allah Koofi Gaduud dada xogaha noo fasirtid. Koofi Gaduud kaliya waa astaan aan kaga duwanahay murashaxiinta kale oo aan qiyaasayno inay nala tartami doonaan doorashada soo socoto. doorashadii hore 2017 kale aan ka wada mid ahayn. kaliya waa astaan aan ugu talagalnay inay isku aqoonsano. midabka guduudka waa midab soo jiidasho leh. koofida guduudanna wax hadda dadka qaar waxay ugu kaftamayaan niyo koofida ama bidaara ku qarinaysa marka waxaan rabaa xataa inaan u cadeeyo inaanan bidaar lahayn ma garato. marka intaas laga soo tago team Koofi Gaduud waxa weeye Soomaalida oo dhan ay u furan tahay xaafada Islii inaan xildhibaan codka Soomaalida ku soo galo oo 100% Soomaali ah oo aanan looga walwal qabin haddii 20 qof oo Soomaali xitaa ay isla istaagaan inuu kursiga gacanteena ka baxo. waa haddii aan u istaagno mashruuca Islii Kando Initiative oo aan ku rabno xaafada Islii in degmo kamid ah degmooyinka la soo kordhinayo 70 ah haddii dastuurka la bedelo ay kamid noqoto. marka shacabka waxaan ugu baaqaynaa inay barnaamijkaas garab istaagaan oo ay taageero u muujiyaan. aad iyo aad u mahadsan tahay guula ku rajaynayna insha Allah. waa mahadsantahay walaal.